السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسكسو نقضوا عنا وناكسن داوديان ملك الدنيا دافيدا كجوجتان waa markale ay clip cusub halka aad naga daawanaysaan waa hodan fashion kanal asxaabtada qaaliga waan idin salaamay waxaan idin leeyahay soo dhawaada waxaan maanta idin wadnaa clip cusub clipkaas oo ah maalmaha bra bulshada ku jiray oo waa laba clip waxa weeyaan Nimco Yaasiin Caraale iyo walaashadeega oo laba beelood midba mid jiidanayo bal insha Allah waxaan ka soo diyaarnay laba clip insha Allah labada clip ayaynu soo wada daawan doonaa kama hor degdegayna ama kama hor dhacayno waxyaabaha la isleeyahay ama la isweydaarsanaya waxa halka inooga soo baxa iyo fikirkeena ayaynu ku lifaaqi doonaa insha Allah jeerteenow ninka ma jeerteenow nabad gali dulmi baad ku soconaysaa maalintii lagu lahaa adeega Yaasiin Caraale iyo Nimco Yaasiin Caraale dhexgal waadigi balooga isaaray warninow arrinkayga ka bax Nimco Yaasiin Caraale waa Nimco Yaasiin Caraale Axmed waa walaashay hooyada iyo aabahay baa dhalay isku dhiig iyo isku dhaqan iyo isku dhaacaan baanu nahay taasi waxay ahayd adeega Yaasiin Caraale oo ka soo jawaabtay fariintan aan imaka idin daawatiin doono insha Allah waxaad ila daawan doontaan fariinta tan oo iyaduna ay soo duubeen odayaal waaweyn oo aad u farabadan bal mid iyo laba ayaynu ka soo wada daawan doonaa kilibadooda inagoon ku wada dheeraanaynin insha Allah ta'ala ila soo wada daawada waa kuwan iyaguna burco jaamac xisdiriye iyo cidii ay oo ahayd familkayga reerkayga ahayd dabadeedna muddo hore ka baxday reerkoo lutay ciddii korsatay iyo ciddii ay ka dhalatay labadii oo mur dhex jooga marka dhex jooga waxa weeye qolo waxay leedahay waxa la yidhi ammaana kugu raagtay dabaduuta ammaana kugu raagtay iyo dabaduuta nin ammaana ku rogday diisi moodaya midna waxa la yidhi oo kale baadiya nin laaragaa ka dhexeeya barajaam xirsi oo inadeertaya oo in badan naga maqnayd imikana muddo reerka ka mid ahayd oo la hayay maantana lagu murasan yahay waxa lagu murasan waxa weeye ammaana ku rogday dabaduuta anna waxaan leenahay baadiya nin laaragaa ka dhexeeya araggii baa naga dhexeeyey sidaa darteed waxaanu u sheegaynaa ummadda Soomaaliland dawladda hay'adaha ay qusayso arrimada caynkaas in burco jaamac diyaar aanu nahay waxaanu nahay odayaasheedii inaanu diyaar u nahay wax alla wixii lagu doobaxayo waayo waxa la yidhi go'aaga haddii lagu qabsado waa laga garbaxa haddii inanteedii lanagu qabsaday waxaanu ogol lahay oonu diyaar u nahay oonu ku doonaynaa nabadgelyo iyo wanaag in laga doobaxo oo waxyaaba lagu kala doobaxo horta waxaa nasiib darra maanta ninka daba socda burcadda waxa weeye waa in adeertayo nasiib wanaag hooyadeeda iyadoo nool bay u timid waxaa dhacday habeenkii ay u timid ee u horraysay ciddii soo dhowaysay anigu ahaa markay soo degtay la xidhiidhay waxaa la socday 4 dumaraa la socdoo kale hooyadeed way indhabeeshay markiina la waayay ayada way indhabeeshay aabaheedna sidii baa libax ku cunay war waxana horta waaba maaragtay war ninka maanta daba socda waxaa soo inkaara u sababa ee dhacday markay halkan geeyeen ay daami geeyeen isla markiiba waxa la geeyay Jabuuti baa la geeyay maxamuud xasan cabdilaahi diiriye ayana waxa weeyaan ina jaamac xirsi diiriye oo airportka Jabuuti ka shaqayn jiray ayaa ayadu adeeg loo diray oo qudrad maartay iibinaysa helay dabadna wuxuu siin jiray wuxuuga faragaada waa la ogaaday ninkan ku siiya lacagta waaki waa la baxsado sheekh baalgeeyay isku deegaan maanan hayn burca u dhibto waxay tiri waa tan inantaydi waa waxyaabaha mucjisooyinka lala yaabo adeega Yaasiin iyo dadka daba socda ee waa inantayadii media aynu isku soo fadhiisanayna iyo waxaanu iska dhamaanay anagu waxaanu diyaar u nahay hadii aanu nahay ilmaadeeradeed iyo reerkii ay ka dhalatay helay xalaashoodii
burca jaamac xirsi deeriye waxaanu diyaar u nahay DNA-gii horta marka hore asxaabtada qaliga waxaan ka dhiibanayaa waa fikirkayga qof kastana aragtidiisa comment hore hoose ha noogu soo qoro aad baad ugu mahadsantihiin horta marka hore nimankan waxay ka dhawaajiyeen ay yiraahdeen adeega Yaasin Caraale markii hore waxa laba meelood ba la geeyay meeshii kale saddexaad sheekh bay ahayd laakiin horta marka hore dad waaweyn oo waxaan ku uri madaxa meel ka sare soo taabtaa ma jirto islaamo waaweyn oo ilaahay ha barakeeyo yiri baa jiray markii ay dhalatay biyihii loogu mayray hooyadeed annaga inaga soo qaadatay bal horta halkay iska galayaan labada eray horta odayadu inday hayaan way soo aaranayaan balse laakiin waxaan aaminsanay ama aan anigu ilaa hadda aan leeyahay adeega ay la dhalatay marka u koobaad sababaha ugu weydiiya sababaha ay ugu la dhalatay waxa weeyaan hadalka odayaasha iiga baxay iyo hadalka iiga baxay adeega iyo xagga ay ka soo jeedo islaamu ay ka hadlayaan waxa weeyaan horta marka koobaad nimco Yaasin Caraale wuxuu yiri nin kamid wuxuu yiri waxaan siin jiray lacag iyo waxbaan siin jiray intaan arkay oo haddana waxay leeyihiin baadida nin la yaaragtida ka dhaxaysa okay haddaba ma xume markii uu ninkaasi arkay maxaa sababay uu kaxayn waayay uu geyn waayay gurigoodii maxaa sababay uu reerkii ugu qaban waayay uu oran waayay inta yar xagad ka keenteen waa ereyga koobaad la isweydiinaya waa kaas ka labaad la isweydiinayana waxa weeyaan nimco Yaasin Caraale maadaama lagu ogaataa halka inay joogto maxaa markii ay yarayd lagu kala bixi waayay maanta oo 60 jirkii waxba aan uga dhinay hadii la isku qabsado horta waa ayaan daro nimco waxaan ku leeyahay waan ka xumahay waa ku ayaan daro adigoo 60 jir ah maanta in la isku ka qabsado balse laakiin haddana adiga ayaa madaxa meel ka sareyso la taabtaamin jirtay adiga ayaa maanta labadan reer ba isku wada marka waxa ku qurux badnayd inaad adigu sidii ugu fiicnayd xalka aad ka haddaba taas horta ma dhicin balse laakiin waxaan ku sheegayaa waxay tahay madaxa meel ka sareyso la taabtaamin jirtay in adigu labadan reer dhinac u kala saartid laakiin kulli xaqiiqada dhabtiina jiidad way iman doontaa laakiin waxa qurux badan oo fiican halka laga uu ka dhawaajiyay ninka ugu dambeeyay baaba lagu qaatay hadalkiisa walaw hadaladiisa iska turtuurayo hadaladiisu aad bay uga dhacdhacayeen laakiin si haddana wuxuu yiri waxa lagu kala bixi doonaa maxkamadda iyo wixii diyaanadkaas yiraahdo laakiin anigu waxaan aaminsanahay inaanay odayaal hadlaya waxba tireenin laakiin haddii hooyadeed soo hadasho ama family-goodii waa la garan lahaa labada waji siday iskugu eegyihiin iyo sida kale waayo dhiigga waxa la yiraahdaa waxa weeye cajiib marka bal adeega sida iskugu eegay waan wada aragnay daawadayaale bal hooyadeed ama family-goodan kalena sida iskugu eegay waan arki lahayn ama soo jawaabaan ama ma soo hadlaan maadaama oo ay dadkii muran ka taagan yahay haddaba waxa taa ku cadaynaysa maadaama oo hooyadeed soo fadhiisan midiyaha oo ay odhanay halka iyo sidaas ayaan intayda laygaga qaatay waxaan aaminsanahay ogahay in odayaashana yihiin odayaal lacag la iska soo siiyo jibka loo buuxiyay una yihiin gabadhan adeegina ay gar ku taagan tahay anu mar walba anigoon u kala eexanayn laakiin haddana xaq wuxuu yahay inaad aragtid baa fiican oo aanad indhaha iska saarin oo iska daboolin marka anu waxaan aaminsanahay inaad tahay nimco Yaasin Caraale balse laakiin waxaan ku sheegay waxa weeyaan inaad waa bil Ramadaan dad meetiya inaad maanta dad ka lacag soo siisid nimco Yaasin Caraale oo tiraahid ii soo hadlo halka ii soo fadhiista waa laga qurux badan yahay xataa dadku soo koriyo hadaan ku dhalin oo maanta la yiraahdo waa tuug way naga xadeen sidan meetida waa laga xishoodaa meetiduna maamuus gooniye leeday ixtiraam gooniye leeyihiin qofka muslimka markuu dhinto lama soo hadal qaado balse laakiin waa kasii imakan way kasii xaq jirtaa bil Ramadaan baa lagu jiraa marka waxaan oran lahaa inaad hadalka halka lagu dambiyo ayaa aad u qurux badan maadaama oo aanay jirin ilaa hadda maxkamadda cid ay bow sharciyeysa ama ay xukuntay marka waxaan oran lahaa anigu inta maxkamadda laga warsugayo halaga warsugo waxa imaka inooga hadhayba waa dhowr iyo 20 cisho waa iida ka bacdii bay insha Allah adeega waa titir waan imanaya insha Allah hadii Ilaahay qadaro marka waxaan oran lahaa inaydan dhinacnaba isku jijiidan waa bil Ramadaan aydan isku sii xumaan ama aydan aad isku sii xil dheeraanin maadaama aan ogeyn kan noqon doontid waayo adigu waxa tahay qof aan waxba ogeyn sida deeyaan anigu ay nala tahay maadaama la 9 jir baa laygu helay 9 jir aad buu aqli badan yahay oo aqli buu leeyahay oo cidi dhashay cid kasta wuu kala garanaya marka ayada aan kuubada inaan dhahno ma bay kala garanaynin waxba qof aan adigu waxba kala garanaynin baa tahay
dee bal maba ogid ciddii ku dhali doontay ciddii ku qaadan doontee waxaan ku odhan doonaa dee law adigan iska dhiga qof la qaadanaya waxaan ku odhan doonaa hadalka halka ha lagu damiyo oo ha lagu joojiyo waa bil rabadaan waa bilihii khayrka ee cibaadada inaad halka ku damisa waan jeclaan lahaa hadal daboolana bay yidhahdeen soomaalida mamaa soomaalida waxay tiraahdaa hadal dignihii daboolani waa dahab marka saasaa ila qurux badan aad baan idinka mahad celinaya daawashada aad idaawanaysaan waxaan idin leeyahay intaynu kan mid xiga ku kulmi doono aad baan idin salaamaya wixii fikirna komanka ayaad nagu reebi kartaan aad baad ugu mahadsantihiin daawashada aadna daawanaysaan assalaamu calaykum